Heliwaa waa degmo ku taal waqooyi bari gobolka Banaadir waana mid ka mid ah degmooyinka ugu baaxadda weyn gobolka marka loo eego degmooyinka kale. Xukunkii militariga ahaa intuusan Soomaaliya la wareegin xukunkeeda. Heliwaa waxay ka tirsaneyd degmada Kaaraan balse 1986 ayay noqotay degmadu mid si buuxda loogu aqoonsaday degmanimadeeda. Saameyn xooggan waxa ku reebay dagaalada waddanka ka dhacay. xilligii Itoobiya soo gashay Soomaaliya 2006 Heliwaa waxay noqotay goobaha ay saldhigyada ugu weyn ku lahaayeen maxaakiimta Islaamiga. dadka degan degmada Heliwaa aragtida ay aaminsan yihiin ee ugu weyn ayaa inay haystaan amni isku haleyn karaan iyagoo ku sheegay in goobaha kale ee gobolka Banaadir iyo degmadooda ay amni wacan tahay degmadoodu. maxay tahay qatarta aan qeexnayn ee ka jirta degmada Heliwaa? والله أنت بدن تدخل دريمة كرتا وحلي رادو كتركتين أنت بدن ميديا وأنت بدن ميديا السجع وحصحه ميديا وحنا وبربري حنا وصحة لكن هذا يدعو مرة كغير واحد أركي جرنا مالير وحلو تورو كرتا اللي دجاجة كدعي طبعا ميديا أنت بدن هو عم بونبون أنت سببها جرنا ودريمة كرتا ميل على التجن وقفك أنت بدن وكيس فكر قلبا وحو كسو قد ذكران وفكر قلبا waxaan leenahay arintaas waxa uu aan boqolkiiba boqol meediyaha iyo waxaan la marsiina laakiin waxa fiican aan waxaan aaminsanahay degmada Heliwaa inay nabad tahay in la soo gooy karo maahane saacadan ba adigu goob joog u shaqeeyo inaan nala qaadato waqtiga qaaliga noo imaato xilligan garoonka aan dhex joogno kubad wada ciyaarno ma dareemi kartaa amni ka jira meesha marka waxaan leenahay bulshada waxaan ugu baaqaynaa reer Heliwaa dabcan magacu qofku wuxuu duuxun yahay iyo haduu san yahay dadkiisa dhaliyo haddii dadka lagu tilmaamo dad fiican dad degmo hadii ama deegaan lagu tilmaamo deegaan fiican dadkiisa fiican hadii deegaan xun lagu tilmaamo dadkiisa xun laakiin waxaan jeclaan lahaa ummaddu inay ishooda macalina reer Heliwaa inay noqdaan dadkii degmadan magaceeda kor u qaadi lahaa sooyaalka soo jireenka marka la soo hadal qaado meelo waxa jirta reer Heliwaa aad u xasuustaan sida masaajida kala ah dabaqayn al-hidaaya iyo kan afarta minaaro oo la dhisay 1983 sidoo kale degmada waxa ku yaala warshadii barfuunka tiyaatar ladane Shaneeme Cabdiwaayeel Heliwaana waxay leedahay laba suuq kuwaas oo kala suuq Heliwaa iyo suuq xoolaha waana kuwa ka socda ganacsi xoogan kani waa suuq xoolaha ee degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir waxa ka mid yahay suuqyada gobolka Banaadir bilaabo meesha hadda aan taaganahay waxa la yiraahdaa baar kulmiye Allah uu naxariistay inuu yahay xaaji xaswadana lahayd odaya qabiil ah hotelka loo soo muxuu ahaa sheeko tago wahayo degmada ay caam ku tahay di waqti xilliga hore la aadiyay di xilliga meesha hadda way burbursan tahay waxa saameeyay dhibaatooyinka dalka ka dhacay hotel soo jireen oo caam ah way yiraahdo muxuu ahaa hotel kulmiye baar kulmiye yiraahdo waxa naga sii dambeeyay sidaad u soo aragteenba xeradii weyneed ee muriidi iyo maslax xasiyaad warshadii laamiga oo dalka dhanba laga dhisay muxuu waa warshad caam ah ahayd ayaduna shaqeynaysay burburkiya saameeyay ayaduna hadda aad arkaysaan noo muuqda burbursan oo u jeedaan waxa ay ahayd meeshan warshada dhiigga ama gowraca xoolaha amihii hore ee qadiimiga ahay dawladdu ay lahayd ayuu ka mid yahay dhismahaanu waa meelaha macnaha ay caanka ku tahay macnaha degmada Heliwaa ayay ka mid tahay xaruntaani oo gowracii xoolaha sida u jeedaan macnaha burburkii dawladda ayaa ayadana saameeyay hadda waxa ay isu bedeshay macnaha suuq oo caanaha iyo macnaha cawska lagu iibiyo isbitaal soo ku yaala Heliwaa ayaa ah midka ugu weyn ee adeegyada caafimaad ka helaan dadka degan degmada kaasoo shaqeeya 24 saacadood waxaana degmadu leedahay MCJ shaqeeya haddaba Heliwaa siday ku noqotay Heliwaa wuxuu ka imaaday dadka waxa laga soo kiciyay maxallaha ay sheegay suuqii Siinay iyo Wardhigle xilliga dadka la keenay aad u dhibsanayeen waxa waay meeshu waxay ahayd meel cusub oo dadka inta badan qasab loo keenay waa taqaan qof meel qasab markii loo keenay magac uu bixi karo
huruweyto macnaha huruwaa sidaas loogu bixiyay xilligaas laakiin muddo kadib markii dadka ay la qabsadeen ay ganacsiyadii iyo horumaradii iyo wixii kale iyo hawadii iyo nacawdii arkeen iyo bilicdii waxay u bixiyeen hilwaa oo xilligii dawladda Saad Barre xilligii madaxweynaha uu ku bixiyay magacaas hilwaa oo ah waxa aan la heli karin degmadu waxay xad la leedahay ilaa iyo 3 degmo oo kala ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Karaan iyo Balcad hilwaa ayaa ah degmo cirifka Muqdisho ku taal waana degmooyinka aan badnayn ee leh waxyada ugu badan ka soo bilow wadada Fagax markaan ku leeyahay wadada Jamhuuriya ee aada badda ilaa iyo xuduudda Balcad degmo aad u ballaaran runtii kana kooban 6 waaxood oo kala ah waaxda Bandar Wanaag waaxda Waxara Cadde waaxda Gubadley waaxda Barwaaqo waaxda Cirfiid waxbarashada ka jirta hilwaa ayaa ah mid gelinka hore iyo ka dambe intaba ardaydu ay u aadaan iskuulada si caadiyana mid u socota balse degmadu ma laha wax jaamacad ah iyadoo lagu tiriyo degmooyinka ugu shacabka badan ee gobolka Banaadir taasoo keentay in ardayda dugsiyada sare ka dhamaysa degmada ay u soo wareegaan degmooyinka kale si ay uga helaan waxbarasho jaamacadeed isweydiinta kale ayaa ah gudoomiyaha degmada hilwaa ma degan yahay degmada mise waa u soo shaqo tagaa subaxii habeenkiina waa ka hoyaada runtii degmadu inaan deganahay waa soo aragtay gurigeyga iyo degmadu waa isku degan yihiin haddaanan degmada deganeen in la ii soo magacaabo ma ahayn sababtoo mas'uulku wuxuu mas'uul ku yahay markuu bulshadiisa dhex joogo markuu bulshadiisa dhibkii dheefta la qaybsanayo markuu dadka ku dhex jiro markuu deegaanka uu degan yahay oo markaas uu mas'uulka ka yahay oo jiifto sababtoo xilli allaale xilliga noqoto waxba meesha ka imaan karo sababtoo bulsho waa la dhaqan iyo ku dhex noolaasho inaan degmada deganahay waxa waaye waa soo aragtay oo markii aan guriga kormeer ku tagnay marka dabcan degmadu waa deganahay dadka maamulka degmada ila deganay intooda badan 99% waa degan waana degmo amni weligeena waa deganahay ifan waxaan dareemaa hadii xataa aan ka tago meesha insha Allah inaan sii joogo aan degmada sii deganaado maadaama aan la qabsaday maxamed hilwaa waxa ku yaal iskool aad u fara badan qiyaastii aniga ilaa 40 iskuul degmadu ma laha jaamacad laakiin waxyaabo la soobeynaa degmadu inay jaamacad leeyahay waxa degmadu waxa ka dhacay dagaalo sokay oo isugu jira dagaaladii dalka soo maray xilligii dawladda burburtay iyo dagaal diimeedyo dadku inta badan xilligan degmadu way ka qaxeen sababaha ugu badanna waxa way jaamacadaha iyo horumarada kala degmooyinka kale tay waxba jaamacadaha ugu bateen waxa kamid ah dadkii degmooyinka ay u qaxeen inta badan jaamacadaha marka waxa loo aaday dadka meelay ku badnaayeen wadareemi kartaa degmooyinka jaamacadaha ma ku wada badan degmooyinka qaar ku badan waxa uu wacan qaxi loo qaxay degmooyinkaas iyo waxbarashada iyo saxmadda xilligaas ka jirta asab si aan ogaano isbedelka jiri kara isku socodka dadka habeenkii iyo maalinkii ayaa gobolku noogu dhacay degmada hilwaa ma jirin wax naaqus oo ku yimid nolosha caadiga ah ee shacabka hilwaa waxayna ahayd mid u socotay si isku mid ah waxa degmada ku yaala goobo habeenkii lagu qaxweeyo iyo garoomo dhalinyaradu ku ciyaaraan oo rooga waxaana lagu gaaraa ilaa saqdhex habeenkii meeshan waa garoon kilkaas oo habeenkii xilligan rabna Burundi ku dheelna xilligan oo jeeda hadan garoon gel rabna waa adiga 4 saac 5 saac meelahaas ilaa xilligan rabna ilaa 8 saac rabna gaari karna habeenkii wadooyinka waa iska mari karna ma sha Allah amniga xaafadana fiican ma sha Allah alxamdulillah ma arag hay'adaha ammaanka degmada ayaa habeenkii sameeyay howlgallo ay ku sugayaan ammaanka dhalinyarada oo kuwa ku qaatay xilliyadooda farxadda ciyaarista PlayStation-ka iyo shaaxiinta oo leh goobo si gaar ah loogu caweeyo maxamed ciise koona goobjoog Muqdisho.